السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة kusoo dhawaada YouTube channelkeena Wayno Production. Haweeney course aan duwanay ahaa Visual Basic. Caawa cashar qaadeen ama maanta cashar qaadeen waxa weeyaan for YouTube way diyaan code-kan dib u laabano waxaan isticmaalnay normal full iska caadi ayaan isticmaalnay markii aan rabnay inaan soo daro macluumaad ku jira laakiin maanta waxaan qaadanaynaa for Egypt way marka hore aragnay waxaan soo samaysanay array oo maaragtay aan soo samaysanay oo safka ka baxsan way ayaan soo samaysanay kadib waxaan ku sameynay items ama macluumaad ayaan ku sameynay values dibna si noogu soo baa waxaan isticmaalnay for loop iska caadi ah way maanta waa iska tirtirayna kan waa isticmaalaynaa for Egypt oo cashar xisaabsan way for Egypt waxa weeyaan in nala soo daawaca qoraalkeena arrays ku jiray macluumaad ku jiray way for each mid kasta way haddaan control z aan soo celsho way kan waxaa isticmaalan loopka caadiga ah waxaan leeyahay oo ka bilaabanaya eber ilaa uu ka gaarayo 6 qiimo way maadaama eber lagu soo bilaabo 6 ma soo daawacayaan leeyahay laakiin for each loop u baahan inaad u sheegto way number cayman inaad u sheegto ma baahan xaalad for each mid kasta way macluumaad kasta ay soo daawacayaan laga kadib 6deeda macluumaad sidii ay kugu soo daawacayaan way u baahan inaad u sheegto meesha ku bilaabanayo meesha ku dhamaanayo waa sababtaas u sameyno way kan waa iska tirtirayna way marka waxaa leedahay for ayaa leedahay waa buttonkeena waa buttonka area isticmaalay for ayaan leedahay kadib each way each aan isticmaalayna way kadib magac ayaan ula bixinaa waa yahay way for loopka way hadda way daabicid way kadib as erayna tabkina macluumaadka waxa ka dhigan string maadaama uu yahay arraygan uu yahay string way tabkina waxa ka dhigan string sumidkii hore awa dib ayaan ka marin way ina table bana kadib aan soo godina laakiin hadda waa ka saarnaa way kadib waxaa leedahay in macluumaadkaas ku jira way qoraal arraygan ahay qoraal way arraygan qoraal ahay way inta ayaa kadib next inuu sameeyo sumid way variable-keena waa qoraal macluumaad kasta ku saabsan midna nagu soo daawacayna way kadib way halkan ayuu marka way list box-keena ayaan leenahay dot items ashiyada ku jirta way dot items dot noo soo daawac ayaan leenahay way noo soo daawac ayaan leenahay kadib waxaan ugu yeelanaynaa daabicid variable-keena daabicid way macluumaad ku jira lagu soo daawacaya way kadibna mid ay u soo daawacaya kan uu soo daawacaya suuriya kan uu soo daawacaya soo dhigna way save ayaan leenahay markii hore waa ka fujiya normal loopkeena caadiga for each loop ayaa ka fujiya way save ayaan leenahay hadda start ayaan leenahay waa kana halkan ayuu yimid kadib way buttonkeena way riix halkan ayaa ku dhufana ma sidii caadiga normalka ayuu nagu soo daawacsan waa sidii normalka caadiga ayuu nagu soo daawacsan sortigana loopka normal loopki aan ku sameeyay aan soo qaadanaa sumdi marka waa kana riix halkan waa ka sidii caadiga ayuu nagu soo daawacsan marka for each loop waa sidaas way u baahan inaad u sheegto waa intaas oo number waa isoo daawacsan mid kasta oo waraaq ku sugan isoo daawacaya leedahay way cashir marka ina fahanteen ayaa for each loop way عشان نسمع دونه ولا حنكون يوتيوب channel كنا subscribe هذا مارك لايك وشير كومنتي وهكذا صوت بلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.